السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا بيانية channel iyo muuqaalkeena maanta. haddii ay tahay markaagii kugu horeysay aad soo booqato channelka Kane Bayaaniye fadlan subscribe saar haddii aad ka heshay video kana like nagu dhiirigeli si aan u soo badino fiidiyowyada noocan wixii oraah iyo weydiimo ahna qaybta hoose commentiga noogu reeb mahadsanidin. muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli rabnaa waddanka ku sheegan ilbaxnimada iyo xadaaradda fog waana waddanka Syria ama Suuriya waa waddan carbeed oo dhaca ama ku yaala bariga dhexe ee qaaradda Asia. dalkan wuxuu xuduud la wadaagaa waddamada kale ah Lubnaan, Israa'iil, Urdun, Turki iyo Ciraaq. magaalo madaxda waddankan waa Dimashq. Suuriya ama Syria dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 22 milyan. Suuriya waxay ka mid tahay waddamada aadka u xadaaradda fog waxayna leedahay taariikh aad u dheer. waxaa la sheegaa Syria inay soo jirtay kumanaan sano ka hor. dadka daraaseeya ama barta culumta asalka hore ee aadanaha ama loo yaqaano archaeologista waxay muujiyeen in jinsiyadda Suuriya ay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu da'da weynaa ee adduunka. Suuriya waxaa dhexdeeda ku hardamay quwado aad u waaweyn waxaana gumaystay dowladdii Cusmaaniyiinta iyo Faransiiska. baaxadda uu ku fadhiyo dhulka Syria waa wax ka badan 186,000 kilomitir square. magaalada ugu weyn ee waddankan waa magaalada Xalab waxaana ku nool dad gaaraya 2 milyan oo qof. magaalada caasimadda ee Dimashq iyo magaalada ugu weyn ee Xalab waxay ka mid yihiin magaalooyinka ugu da'da weyn ee caalamka. xilligii Islaamka magaalada Dimashq waxay saldhig ama fariisimo ciidan u ahayd khaliifadii Umayyiyiinta. dowladda casriga ee Syria ayaa la aasaasay qarnigii 20aad kadib qarniyo badan oo ay ku jirtay gumaysi dowladda Cuthmaaniyiinta iyo muddo gaaban oo ay ku jirtay gumaysigii Faransiiska. Suuriya waxay gumaysigii Faransiiska ka xorowday 24 Oktoobar 1945 inkastoo ciidamada Faransiiska aanay ka bixin ilaa 1946. Suuriya ayaa kaalinta ugu dambeysa ka gashay kaalinta amni darrada adduunka taasoo ka dhigaysa in waddanku uu noqdo waddan aan xasilooneyn. 2017 hay'adda qaxootiga adduunka ee loo soo gaabiyay UNHCR waxay diiwaangelisay wax ka badan 5 milyan oo qaxooti Suuriyaan ah. madaxweynaha waddankan waa Bashar al-Assad wuxuu xukunka hayay 2000 ilaa 2020 waana madaxweynaha 19aad ee ugu xukunka dheeraa qaaradda Asia. luuqadda waddankan waa luuqadda Carabiga. lacagta waddankan laga isticmaalo waa Serial Pound oo loo soo gaabiyay SYB.